Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada jalka maalmaha. Himadu ama hanku waa niyad run ah iyo doonitaan dhab ah taasoo looga dan leeyahay in lagu gaaro waxyaabaha wanaagsan ee nafta waxtar u leh iyo in laga fogaado waxyaabaha xun ee keenaya in naftu ay ku dhacdo amba ay ku timaado hoos u dhac. sidoo kale himada sare ama hanku waa dhaqankii ambiyada Allah ay la yimideen mar walibana ay ka dhigan jireen habdhaqan ayagoona ku xaqiijin jiray hadafkii uu Allah u soo diray oo ahaa sidii ay ku gudan lahaayeen risaaladii Allah uu u soo dhiibay. Rasuulkeena Muhammad wuxuu ahaa mid ku dayasho mudan dhan waliba oo ka mid ah noloshiisa. Marka aynu eegno himada uu rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam lahaa waxa aynu dareemi karnaa in uu ahaa mid himadiisu sarayso mar walibana jeclaa in uu noloshiisa wax badan ka xaqiijiyo. Tusaale ahaan markii uu Allah subxaanahu wa tacaala u soo diray koonkan in uu gaarsiiyo risaalada Allah wuxuu kala kulmay dhibaatooyin fara badan iyo in dadkii ay ku diideen dacwadii loo soo dhiibay, balse taasi ma aysan saameynin mana baabi'in hamigii iyo hadafkii uu lahaa ee waxa uu ku dadaalay sidii uu ku xaqiijin lahaa hadafkiisa. Markii dambane waa uu gaaray. Waxaa la sheegay in rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii uu dhimanayay agteeda in uu xanuunsanaa maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa dhacday in uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam masjidka la geeyey isaga oo garbaha laga hayo. Markaasuu wuxuu arkay saxaabadii oo salaad dukanaya, Abuubakarna uu dushinayo. Markii uu arkay rasuulka aad ayuu u farxay, waxa uuna ogaaday in uu gaaray wixii uu ku haminayay, risaaladii loo soo dhiibanay oo si wanaagsan u gutay. Inta badan ruuxa hamiga leh waa ruux mar waliba ay niyadiisu wanaagsan tahay kuna kalsoon Allah, wuxuuna aaminsan yahay in uu xaqiijin karo ama uu gaari karo waxyaabo badan oo uu ku haminayo, mana ka quusto markii ay ku timaado mashaakilaad ama culeysyada kaga imaanaya gaaritaanka hadafkiisa. Sida badan qofka noocaas oo kale ah waxa uu gaaraa wax waliba uu ku haminayo, noloshana waxa uu ka xaqiijiyaa wax badan. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu qur-aankiisa meelo badan ku ammaanay dadka himada sare leh, wuxuuna u ballanqaaday in uu siin doono abaalmarin wanaagsan maadaama ay ka run sheegeen niyaddooda iyo go'aamadooda. Haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo in aad hesho himad sare ama hankaagu uu noqdo mid sare? Waxyaabaha kugu saacidi karo inaad hesho himad sare waxaa ka mid ah in aad marka hore aaminsan tahay in uu Allah ku siiyey awood iyo mawhibo fara badan aadna gaari karto in badan oo ka mid ah noloshaada. Inaad wax badan ka akhriso ama aad ka ogaato dadka adduunyada wax badan ka xaqiijiyey meelo sarsarena ka gaaray. Waxaa kaloo ogaata in uu Allah ku gaarsiinayo inta ay himadaada la eg tahay. Haddii aad ku haminayso meelo sarsare, Allah waa uu ku gaarsiinayaa. Sidoo kale haddii aad ku haminayso meelo hoosena, Allah wuu ku gaarsiinayaa. Guntii dadku waxa ay ku kala duwan yihiin hadba sidii loo xaqiijin lahaa nolosha. Dadka qaar waxa ay ku qanacsan yihiin in ay helaan waxyaabo iska yar, halka dad kalena uu hamigoodu yahay in ay xaqiijiyaan wax badan oo ka mid ah noloshooda. Sidaa darteed waxaa wanaagsan in aad Allah ku barido weel weyn si uu kuu siiyo wax badan, aadna ku dadaasho sidii aad ku xaqiijin lahayd hamigaaga.